caruuraha yaryarka markii su'aal la weydiiyo oo ay iskuulka dhiganayaan oo lagu yiraahdo maxaad doonaysaa markaad weynaato inaad noqoto midba meel ayuu taabtaa. mid wuxuu leeyahay nin culimo ah oo diinta yaqaano inaan noqdo ayaan rabaa, mid wuxuu leeyahay madaxweyne ayaan doonayaa, midna wuxuu leeyahay dhakhtar ayaan rabaa. haddaba waxaa jira dhalinyaro kale oo ayaguna hamigooda iyo qalbigooda wax ka yeerayo, kuwaasi oo doonayaan inay ayaguna wax noqdaan. haddaba muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa sidee baa loo noqdaa gabaya. fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo aadan horay sabskribe noogu saarin, maanta inoo saar si aad ula socoto muuqaaladeena. cabdinaasir barqadle waa nin abwaan ah oo gabya ah, kana howlgala idaacadda Star FM. waxaan weydiiyey bal in uu inoo sharxo sida ruuxa uu gabya uu ku noqon karo. waa duuniya hawlihii waxaan malaynayaa wax fara badan waxaa jira u baahan in laga jawaabo. dad fara badan waxay weydiiyeen see ayaa abwaan lagu noqon karaa, see ayaa abwaan lagu noqon karaa. horta marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan sharaxo abwaannimada lafteeda waxay tahay. yaa abwaan ah, yaan abwaan ahayn, yaa gabyaa ah, say tahay gabyaannimadu. taa lafteedaan jeclaan lahaa inaan sharaxo. anigu waxaan aaminsanahay qarnigan hadda aynu joogno dadka nool wax abwaan inuu isku jirin baan horta aaminsanahay. see lagu noqon karaa hadday imaato way adag tahay, waa wax ilaahay bixiyo. taas saasaan kaga gudbi lahaa. see gabyaa lagu noqon karaa, see gabyaa lagu noqon karaa. taa haddaan usoo laabto see gabyaa lagu noqon karaa waa hawl caadi ah. qofku wuxuu noqon karaa gabyaa, wuxuu ku noqon karaa 3 qodob hadduu tiigsado, isagana ilaahay hiba siiyey hal abuurnimo oo afkiisa hooyana aad u yaqaano. waa macquul inuu gabyo qofka isaga uuna gabyi karaa. tusaale 3 qodob baan idiin soo qabanayaa. midda koowaad waxaa weeye ruuxu inuu barto suugaanta Soomaalida gebigeedaba inteeda badan ee midii hore loo yiri inuu qofku wax ka barto waa qodob caawinaya. waxay ku caawinaysaa qofku inuu suugaanyahan noqdo. 2 waa inuu afkiisa hooyo barto oo afkiisa hooyo yaqaano, sababtoo ah markaad gabyayso waxaad u baahan tahay eray bixin, iyadana waa in laga helaa. 3 waxaa loo baahan yahay oo kaleento ruuxu inuu yahay qof daneeya oo hobbi u leh amaba leh mowqif uu gaari rabo oo uu higsanayo inuu lahaado. 3 qodob haddii uu qof ku lahaado uuna aad iyo aad u daneeyo arrinta iyada, hal abuurnimana ay ku jirto, way fudud tahay inuu gabyaan noqdo. barqadle waxaan kaloo weydiiyey gabyaaga Soomaalida, ruuxa gabyaaga ah oo iminka nool, ruuxa uu ugu jecel yahay ama uu taageero. gabadh hadda waxaa jirtay gabadh tirisay gabay la oran jiray guur aan kala aado kaleento. gabadh tirisay gabay waxay tirisay caalami ah. gabaygaas aad iyo aad baan uga helaa. waxaan aad iyo aad u qoslaa markay dhahdo maartay waxay tiri dabaguraha gooraha xun jecel gabadh ardaa jiifta, gaatama goor dhixiya leel tuugada u guday gaajoonaha aan dhargeyn guur aan kala aaday. waa ninka macdaba xadka yaqaana. gabadhaasoo kaleento hadda gabyadeeda gabay cajiib ah. waa gabay markii rag fara badan oo aan aad iyo aad ula yaaba ay tiri si aan ku qoslo. waa jiray gabadha gabaygeedu. ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad ka heshay sheer garey si ay dadka looga faa'iidaystaan, like inoo saar, subscribe-ka naga iloobin. mahadsanid.